السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب السوداء أصحابته وحين سعودي عشرة ذني تحنها أو أي نقطة هالذني برشة حسابته خاصة تكسير سريع جبت ركيسي تريغونومتري هذا أصحابي وحين نتلفيرين دونا هذا له قدره فيديو وكان عشرة ذي يقومهم سنة تريغونومتري كاسو proving trigonometry identity in aan proof gareyn karno trigonometry identity isleegada waxa weeyaan trigonometry uu leeyahay hadaba intaynu wax proof gareyn marka koowaad waxaynu isla fiirin doonaa proofing hadaa sameynayso waxyaalaha aad isticmaalayso yani waxyaalahan hoos ku soo socda ilaa 10 equation markii aad rabto inaad wax proof gareyso waa inay maskaxdaada ku jiraan haddii intan adigu mid ka mid ah aadan aqoon aad isku daydo inaad wax proof gareyso waxa ay noqon doontaa waxa aad proof gareyn doonto mid aadan garanayn meesha ay u socoto iyo waxa weeyaan meesha aad u wado hadaba daawade arday waxaan marka koowaad ku dhiirigelinayaa in equation kan aad waxa weeyaan marka koowaad aad xifdiso kadibna proofing kaaga markii aad rabto aad u isticmaasho يعني كو واحد سمينيسا واحد دنيسا equations كان مسكح هذا وين أي مركز تاعي كجيران هذا بس أصحابي مركي واحد ولا بروف جرينا أيوه صدح نوع ما واحد لو بروف جريا أما صدح equation أما صدح قابة واحد لو بروف جرين كنا بروف الكواد وحويان شيء مركا رمينا بروف جرينو إن أن استعمالنا equations كاللي هذا rational يعني الراشناليسك معناه ذو ما حي ميلها أدو حكوا بروف جرينيسو ميله هذا أما بوزيشنه هذا إن أدو مركا قار أدو استعماله راشنال ومحاكم ده لب إيكويشن باكم ده تصالح ميل الله لماشي أدربته أو بروفين مركا أدو كتشدو أو تان ميل الله لماشي تان وحاد كوبدلن كده سينتيتا أو لو قيبيي كوستيتا meelaha qaar markaad proof gareynayso taanta waxa laga rabaa inaad ku bedelato sin oo loo qaybiyay cos theta talabaadna meel allaale meeshii oo ah cot hadhow markii aan proof gareynayno haddii aan u baahano waxa ay leegtahay cotku cos oo loo qaybiyay sin theta yani waa maxay meel allaale meeshii hadhow waxa la yiraahdo cot ah marka qaar waxaan ku bedelanayaa cos theta oo loo qaybiyay sin theta hada labadaas waxa la yiraahdaa rational labadaas waxa la oranayaa rational baa la oranayaa sidoo kale waxa jira kuwa la yiraahdo reciprocal yani waa maxay waa rogal kuwa la rogayo kuwaasna marka waxa la yiraahdaa positionadooda waxyaalahan ayaynu ku bedelan doonaa oo iyagana waxa ku ka aan qoro وفيري وحلا يرهدا ميل الله لميش أنكو أربنا one over sin أما أينو صوبحضو وحاينو كبدلنا ميش هذا وحويان كوسيك أينو كبدلنا ميل الله له ميش أينو كأربنا one over cos وحاينو كبدلنا sec meel allaale meeshii aan ku aragno 1 over tan waxaynu ku bedelaneynaa cot hadaba saddexdaana waxa weeyaan meelaha qaar hadhow equation kaaga waxa lagu soo darayaa cosec baa lagu soo darayaa automatically waa inaan fahmaa cosecteedu inay la dhiganto 1 over sin in ay la dhiganto waa inaan maskaxdayda ku haystaa meel allaale meeshaan sec ku arko waa inaan maskaxdeeda ku haystaa in ay leegtahay 1 over cos theta waa inay leegtahay waa inaan maskaxdeeda ku haystaa meel allaale meeshii aan ku arko 1 over tan waa inaan maskaxdeeda ku haystaa waxa weeyaan in ay leegtahay cot in ay leegtahay taasi waa qaabka labaad qaabka saddexaad waxa weeyaan anagoo isticmaalayna waxa weeyaan
Pythagoras theorem. annagoo Pythagoras theorem isticmaalayna waa inaan oo maxay meel allaale meeshaan ku aragno sin square theta oo lagu daray cos square theta waxa ay la dhigantaa baan leeyahay 1 meel allaale meesha hadda waan ku arko sin square plus cos square waxaan u qaadanayaa 1 baan u qaadanayaa sidoo kale meel allaale meesha aan ku arko 1 waxaan u qaadanayaa sin square plus cos square haddaba kan iga wareeji coska iga wareeji sin square maxay ila dhigantaa oo ila dhigmaysaa 1 oo laga jaray cos square theta yani marakanna waxa wareejisaa sin ta wareeji cos square waxa ila macna tahay 1 oo laga jaray sin square theta yani intaana waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa reciprocalkii weeyaan intaana waxa weeyaan waa reciprocalkii sidoo kale waxa jira kuwa kale oo ka soo dhiraan rismanaya ma rabo qaabkay ku iman inaan sheego laakiin si waa maxay si hayso maskaxdaada inaad xifdiso isku day oo waxay ku leedahay 1 oo lagu daray tan square 1 oo lagu daray tan square waxa ay la macno tahay baan leeyahay sec square bay la macno tahay 1 oo lagu daray tan square waxa ay la dhigmaysaa sec bay la dhigmaysaa sidoo kale 1 oo lagu daray cot square waxa ay la dhigmaysaa waxa weeyaan cosec square haddaba asxaabi waxa weeyaan intaasi waxa weeyaan waa waxyaalaha aan isticmaali doono hadhow markii aan proofingayga aan isticmaalayo meelaha aan ku badbedelan doono waxa laga yaabaa haddaba haddii aad rabto yani tan meesha ay ka imaanayso haddaad rabto taas dhinac kasta oo sin taas square tanaan soo qaatay kuwa kan tanaan ka soo dhiraandiri oo maxaan sameeyey dhinac kasta sin square baan u qaybiyey 1 baa iga soo baxaya cos square haddii loo qaybiyo sin square cot square baa ka soo baxaya 1 haddii loo qaybiyo sin square na cosec square baa ka soo baxaya يعني دhinacna mar sin square baan u qaybiyey sin square baan u qaybiyey sin square baan u qaybiyey qaacidana ay soo baxaysa mar labaad cos baan u qaybinaya cos square baan u qaybinaya cos square baan u qaybinaya cos square tan baa iga soo baxaysa cos 1 baa iga soo baxaya tan intaas soo baxaya kuwana halkaas ka yimaadeen haddaba asxaabi markii aan wax proof gareynayno equationadeeda meelaha badankood waxaan isticmaalnaa kuwan isticmaalnaa waa maxay tan square ko rational square waa labada xabo reciprocal waxa la yiraahdaa waa saddexda xabo halkaas waa 5 iyo 1 2 3 4 5 shantaasna waxa weeyaan oo ah Pythagoras theorem ku imanaya intaasi haddii maskaxdaada aad ku hayso 10ka equation adigoo maskaxdaada ku haya haddii wax proofing lagu diro waxaan hubaa 100% proofingka lagu diray in aad xisaabin kadho aad soo saari kadho inta kaliya miyaa la iska rabaa proofingka maya waxyaalo kale oo muhiim ah ayaa la iska rabaa waxyaalaha kana waa kuwa kan sidoo kale asxaabay waxyaalaha muhiimka ah ee laga rabo markii aan rabno inaan proof sameeyno waxa kamid ah waxyaalaha kan kow inaan naqaano cubic formulooyinkan formulooyinkan waa inaan muhiim naqaano tusaale ahaan oo kale a plus b cubic haddii lagu diro qaabkaas ay u furfurmaysaa waxay noqonaysaa a cubic plus b cubic plus 3ab bracket a plus b yani waa maxay haddii inta lagu soo x plus tusaale ahaan oo kale 2 oo saa lagu saaro 3 lagu dhaho qaabka u furfur ku badbedelo ee tan koowaad waa a square garay yani waa maxay waa x cubic maxaa ku xiga b dan square garaysan waa imisa la marka halka ay yaalo 3 jeer isku dhufo waa 8 maxaa ku sii xiga lagu daray labada isku dhufo 2x 3 ku sii dhufo waa imisa 6x a o b waa inta wax ku dhufanaysa a iyo b oo la isku daray labadoodan oo la isku daray x plus 2 furfur algebra qaabkeedu xal haddaba haddii equationaadka qaar markaynu xalinayno sida ayna la siiyo sida tan oo furfuranayna a cubic plus b cubic plus 3ab plus a plus b haddii la siiyo a minus b oo cubic kana idan kadalik a cubic minus b cubic plus 3ab plus a minus b haddii la siiyo a plus b way ka duwan tahay labtani yani waa maxay haddii qaabkana la siiyona a plus b plus a square plus b square plus ab
عفوا كواني سيدا معهن ميد كستا قار كيدا وصارنتي عفوا كوان ميد كستا قار كيدا وصارنتي عفوا ميد كستا قار كيدا وصارنتي دي كلا اسكو ميد بين نقونا يعني موقت كويس مجران هدي مركي A كيوبيك بلاس B كيوبيك لغسيو غاب كان وفر فرن دونا يدو لغو حلين دونو إن شاء الله اسكو دي دونا اكسامبل ناكو سو قادن A بلاس B بلاس A كيوبيك بلاس B A سكوير بلاس B سكوير ماينس AB تنوح اللي دوا كذلك يعني هو محتاج سدا سويان سدا معه سكوير باهري A بلاس B سكوير جرسن داخل نوع ما حي A سكوير بلاس 2AB بلاس B سكوير رادي قابك يكون مادان A minus B وحي لما أنت السكوير وإنتاس A سكوير minus B سكوير نحدين لسي وإنتاس هذا بس حابي وحويان كو لابا صدع أفر شن لح تدبو طبعا حبو أو وحلي هذا وهراء صور شغني أو بروفين كأها إيو تضبطة تريق تضبية طبعا كتريق أصحابي هدي أنت عين سكودر سنو وعين حفظنو بروفين كهذا مركا عين تكنو قاب الله لقاب كسؤون لويدي وحن أودو يلا لنا إنه نحلنا هذا بعد يكون عرضي واحد سمعني سلمان يعني فيديو واحد ربعنا أنت كسوق بجبيه صوته واحد ربعنا كوا كان تنبيل كقرطه عاد حفظه فيديو كحرق إكسامبل الله عين كحل دون إلا سدح فيديو من سمين دونا أو بروفين كه هذا بعد ما نكويشنا داسي waxaan rabaa inaad awood u yeelan karto inaad xalliso adigoo isticmaalaya 17 formulo iyo 7 trick adigoo isticmaalaya 17 inaad isku darsato kadib aynu xalino hadaba asxaabi intaysan ku soo gabagabeynayna casharkeena maanta inta aynu kulmi doona asxaabi videoga sixiga oo noqon doona proving trigonometry identity example illa 3 video aan ku sameyn doona intaynu kulmi doono videogaas waana isku duuban oo idin leh isma dhaafno في أمان الله.